عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxbarashadu waa mid ka mid ah waqtiyada ugu xiisaha iyo xusuusta badan ee nolosha qofka. Waxaa jira sababo badan oo loo aado iskuulada iyo jaamacadaha, maadaama ay kuu ogolaanayso inaad hesho waxbarasho aadna lahaato damacyo ku aadan nolosha. Jaamacaduhu sidoo kale si weyn ayay saameyn ugu yeelan karaan mustaqbalkaaga maaliyadeed, maadaama helitaanka shahaado jaamacadeed ay kuu furi karto albaabo aad ku hesho shaqooyinka aad ku riyoon jirtay oo aadna ku mutaysato mushaar wanaagsan. haddana sidoo ay tahay qaar badan oo ka mid ah ardayda ayaa sameeya qaladaad kuwa oo saameyn ballaaran ku yeelan kara guushooda waxbarasheed. Maanta waxaan kula wadaagayaa qaladaad oo ay sameeyaan ardayda misna waajib ugu tahay inaad ka fogaato haddii aad rabto inaad ku guulaysato waxbarashadaada. kow, qorshe xumi iyo maareynta waqtiga oo liita. dib u dhigidda hawlaha waa caqabadaha ugu weyn ee haysta ardayda, khaasatan kuwa jaamacadaha dhigta. dib u dhigidda hawlahaagu gaar ahaan marka ay tahay hawl muhiim ah waxay ku hogaaminaysaa natiijo xumi. mar waliba aad dib u dhigto hawl waa mar waliba ay u muuqato inay tahay wax aan la